kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ee ku nool magaalada Nairobi ayaa lagu soo dhaweeyay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo kamid ah mas'uuliyiin dhowr ah oo u taagan doorashada Jubbaland. qaar kamid ah dhalinyarada iyo xubnihii kale ee ka qayb galay kulanka soo dhaweynta ee lagu qabtay xaafadda Isla ee magaalada Nairobi ayaa madasha ka jeediyay hadal la soo dhaweynaa oo ay ku soo dhaweynayeen xildhibaan Cabdirashiid Xidig. mudane oo soo dhaweynaynaa waan ku bogaadinaynaa Jubbaland saa wada ognahay saddexda gobol oo Jubbaland isku dhaho waa gobol aad u khayraad badan anagoo inay gobol aad u khayraad badan baan haddana ka faa'iideysan khayraadka asaga Jubbaland waxay rabtaa cadaalad aad u baahsan oo loo wada leeyahay dalka Jubbaland hadda waxaa nagala jooga Cabdirashiid Xidig kulli aqoon fiican baad u leeyihiin laba mar oo Jubbaland aad ugu baahneed in loo heliyo يو حلبان عبد الشهيد وحوها نكيو هيلي مر waxay ahayd markii dhulka oo dhan laga haystay aan joognay xuduudka laga soo bilaabo doolow ceel waaq diif doobley aan joognay oo ciidankan meesha ay ku daraasaan dawladii meesha joogtana markaas ay sarraali ka ahayn dhaqdhaqaaqii meesha ka jiray Cabdirashiid wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xilligaas وأنكي سورة قليل إن عيدا كاني مشارك وجوه قاتن. جبلان ما دو مرباهنا اسمكينا كلا دراء وحيو باهنت جبلان اسمكينا اسمهايو هدية أن لهيل اسمكينا اسمهايو وعاد ما جهل كاسينو سوا حلا أما نتيجة يسكاي مالين جبلان وحيو باهنت حي صدر دبا أو تعبكرة أو جامدات ماشي أوصل كسيلا ماشي أوصل من طول إلى عاصمة اسبدل إنه يبقى حتى واحد السويدين يا معها إن اسبدل كعفة بلاش يا معها اسبدل وحوبة هنا الفعل لأنه حياة هذا اللي يستاهل. intaasi kadib waxa goobta ka hadlay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo qayb ka ah musharaxiinta doorashada dhawaan la filayo inay ka dhacdo maamulka Jubbaland waxana uu si qoto dheer u kaga hadlay arrimaha maamulka Jubbaland. xaaladda deegaanka aynu halkan magaciisa ku fadhinay Jubbaland oo deegaan muhiim ah sida dhalinyarada halka ka hadashay ka hadlaysay waa deegaan qaali ah waa deegaan barwaaqo badan waa deegaan ku yaala geographically meel aad iyo aad caalamka muhiim ugu ah Soomaalina muhiim ugu ah laakiin nasiib darro Jubbaland maanta culayska iyo gaajada iyo dhibaatada ka jirta way fara badan tahay inkastoo horumar iyo wanaag iyo amni meelaha qaarkood uu ka jiro haddana hawl badan baa u dhiman dhammaanteena waxaa laynooga baahan yahay inaynu ka shaqayno inagoo midaysan oo qoys iyo qabiil iyo koox iyo gobol midna ahayn inaan ka dhabayno isbeddel inuu ka dhaco Jubbaland taasi waxay keenaysaa in horumar la aado taasi waxay keenaysaa in dadku isku duubnaado taasi waxay keenaysaa inaan diidno mar kale in layna kala qaybiyo ama shacabkeena la iska horkeeno. Cabdiwali Xuseen Tawakal, Telefishinka Universal, Nairobi.